waxa uu caashaqay gabadh Afrikaan Carbeed. guurkeedu waxa uu ku xiran yahay qaadashadiisa diinta Islaamka. waxa uu sare u hayaa rajada ku soo celinta koobabka guriga Emirates Stadium. waxa uu dibadda u safray xitaa isagoo mid ka mid ah qoyskiisa aan ku wargelin. isagu waa Thomas Partey. maanta waxaanu eegi doonaa qisada islaamnimada Thomas Partey iyo noloshiisa gaarka. laga soo bilaabo safarkiisa kubadda cagta, maxaad ka ogtahay noloshii adkayda yaraantiisa, falcelintiisii ku biirista Gunners Arsenal, gabadhii sababta u ahayd islaamnimadiisa iyo xaqiiqada dhabta ee arrinkaasi. magaciisa oo buuxa waa Thomas Partey. waxaa loo garan og yahay Thomas Partey. waxa uu ku dhashay 13 bishii Juun sannadkii 1993 tuulada Odamase Krabo ee waddankaasi Ghana. aabbihii waxa uu ahaa tababare kubadda cagta oo maxalli ah, hooyadiina waxay ahayd ganacsato dukaan yar lahayd. Thomas waxaa la dhashay 8 carruur ah sida warbixinnadu ay sheegayaan, gaar ahaan CTV Online. hooyada dhashay Partey waxay hore u soo dhashay 3 carruur ah ka hor inta aysan la kulmin aabbihii. walaaladiisa mid ka mid ah waxaa lagu magacaabaa Frank. cilaaqad xooggan ayaa kala dhaxaysa wiilkan, waqti qurux badanna way soo wada qaateen yaraantoodii. sidoo kale Francis ayaa sidoo kale ah mid la dhashay laacib kubadda cagtana, inkastoo uusan gaarin heerka Thomas Partey. Thomas waxa uu nasabsadaa qoys dabaqadiisu meel dhexaad ahayd ama ay hoosaysay, taasoo faqri daran u hareeyay. waxaana kubadda cagtu ay u ahayd albaabay kaga baxaan noloshaasi adag oo ay ku jireen. mar haddii aabbihii uu ahaa tababare, la yaab ma lahayn cishqigiisa kubadda cagta. bilowgiisii waxaa lagu biiriyey akademiyadda Karebo ee ka yar 10 jirrada ka hor inta uusan u wareegin akademiyadda Aishmain. intii uu halkaasi ka ciyaaraya waxa uu siiyey aabbihii naanaysta Senegal kadib markii bandhig cajiiba wiilkiisa uu la yimid, waxaana dib uu u xasuusiyey saaxiib magacaasi lahaa. kadib markii horumar weyn uu sameeyey, waxa uu matalay tiro naadiyaha u maxalliya waddankiisa ah. waxaa bilowday riyada u safridda Yurub si nolol wanaagsan ugu abuuro naftiisa iyo tan qoyskiisa. aabbihii waxauu dhowr jeer ku fashilmay in dhaqaale u aruuriyo safarka canugiisa Yurub. waxa uu gaaray heer uu iibiyo hantidiisa iyo agabyadii kale uu lahaa si Thomas ugu safro Yurub. maalin maalmaha ka mid a Thomas waxa uu la kulmay mid ka mid a wakiilada kubadda cagta. wuxuu kala sheekaystay qaabka ugu fiican ee uu ku gaari karo hamigiisa. inkastoo caqabado dhowr ay hor taagnaayeen safarkiisa, waxa uu ka leeyahay. markii wakiilku uu weydiiyey waxaan doonayo, waxaan ugu jawaabay waxaan doonayaa inaan ku guulaysto kubadda cagta Yurub si aan u caawiyo qoyskayga. Thomas iyo wakiilkiisu waxay isku afgarteen inay u safraan waddankaasi Spain. ma jirin koox hore loola heshiiyey maadaama heshiisku waa mid qarsoodi ah. Partey waxa uu diyaarsaday dukumentiyadii u baahnaa xagga safarka. waxa uu ahaa mid saacadahaasi uu ku noolaa jawi inuu cuno oo uu cabo uu seexdo, haddana uu sugo maalinta khayrka waa safarkiisa. maalintii xigtay gaari ayay soo raaceen Thomas iyo wakiilkiisa, iyagoo u safray magaalada Accra ee waddankaasi Ghana. arrinta qaracanka lahayd waxay ahayd markii uu soo safray wiilkan isagoo aan ogeysiin ruux ka mid a qoyskiisa. waxa uu ka leeyahay maalintaasi, waalidkay waxba kama ogeyn iyo cid ka mid a qoyskayga bixitaanka maalintaasi. haddii aan u sheego waxay dhibaato ku noqon lahayd qoyskayga. markii ay soo gaareen Spain, waxa uu nasiib ku siiyey in lagu biiriyo Athletic Madrid C. markii uu ogaaday inuu u ciyaarayo Athletic Madrid, waxay u ahayd farxad, waxaana hore uga yidhi. maalintii ugu horraysay jawigu waxa uu ahaa mid aad u qabo. waxaannu gaarnay waddanka Spain 3 galabnimo ama 6. waxaan samaynay tababar. markii aan hubiyey xaaladdayda ayaan dareemay inaan wanaagsanahay. muddo 6 bil ayuu u ciyaarayay Madrid C ka hor intaan loo soo dallicin qaybta B. halkaasi wuxuu ku qaatay waqti wanaagsan isagoo sameeyey horumar weyn. dadkoo dhan way u muuqatay muhiimaddiisa. waxa uu sameeyey cilaaqado iyo xidhiidh saaxiibtinimo oo gudaha iyo bannaanka akademiyadda. wuxuu halkaasi ku bartay Pau Oliver Torres, Saul Noguez iyo saaxiibo kale. waalidka mar walba wuxuu ku dadaalaa sidii canugiisa u garab istaagi lahaa. waa sifo dhaba oo ku dabaqmaysa aabbaha Thomas. waxa uu ka yidhi doorka aabbihii iyo garab istaaggii uu ka helay. waalidkayga mar walba waa uu igu taageeri jiray go'aanadeeda. waxa uu ururiyey maal dariiqad isagoo iibiyey gurigiisa. waxay ku kalliftay wakhti dheer iyo shaqo adag. bil kadib markii aan tegay waddanka Spain, waxa uu ii soo diray lacag aan ku iibsado kabo iyo waxyaabaha kale ee gaarka aan u baahanahay.
thomas barty waxaad ka dareemi kartaa qisadiisa aabbihii inuu aaminay isagoo xitaa wax badan caqli ahaan aan u korin sidoo kale uu iibiyey hantidiisa si uu ugu dhiso mustaqbalka canugan yar aabbuhu wuxuu arkayay karti iyo kalsooni xitaa uusan baarti nafsadiisa iska arag thomas waxa uu sameeyey horumar weyn waxaa amaah loogu diray kooxo dhowra si waqti munaasaba uu isagu garoonka ugu jiro waxa uu soo ciyaaray naadiyada mayorka almeria iyo kuwo kale kadibna waxa uu ku noqday naadiga rocky blancos waxa uu la jaan qaaday jiilkii uu soo saaray macallin diego simeone afrika iyo dalkiisa waxaa looga garan ogyahay michael esian waxa uu kula guulaystay atletico koobka uefa yurub liiga iyo suber koobaha yurub xilciyaareedkii waxaa baarti isagu ka soo degay qalcadda imaaraati stadium kadib markii heshiis ay ku soo qaadatay naadiga madaafiicda waxay bicisay lacagihii 50 milyan ee yuuro u dhigmay 45.3 milyan oo ganiga sterliinka ee lagu burburin karay heshiiskiisa ciyaaryahanka qadka dhexe gaana 188 jeer ayuu matalay safka atletico markaasuu ku biray sanadkii 2011 baarti fariintii ugu horreysay taageerayaasha arsenaal uu diro waxay ahayd nabaday ganaris waad ku mahadsantihiin jacaylkii aad ii muujiseen iyo fariimihii aan idinka helay waan sugi la'ahay inaan qayb ka noqdo shaxdan adag weliba waan sugi la'ahay in qayb aan ka noqdo kooxda inteeda kale thomas waxa uu xidhiir jacayl la galay gabar lagu magacaabo ohema waxay isbarteen markii uu ciyaarayay horyaalka dalkiisa gaar ahaan kooxda tima waxay wax ka barataa macadka culuumta ganacsiga ee montreal ee waddanka kanada markii dambe waxaa soo baxay warar sheegaya inuu burburay xidhiirkooda marka laga tago kubadda cagta waa ruux bini'aadam oo deggan oo aan isla weynayn waxa uu leeyahay saaxiibo badan isagoo lagu tilmaamay inuu yahay mid aad u dabacsan islamarkaana ay ku weyn tahay bini'aadannimada kama labalabeeyo caawinta dadka tabarta daran mararka qaarkii waxaa la arkaa isagoo tegaya goobaha faqriga ee deegaanada dalkiisa si uu caawiyo masaakiinta halkaasi intii lagu guda jiray maalmihii la soo dhaafay dadka isticmaala baraha bulshada waxay hadalhayn ka hayeen sawirkan waxa uu la soo muuqday baarti ninka u dhashay waddanka gaana isagoo gacanta ku haya musxaf ama kitaabka qur-aanka kariimka waxa uu la taagnaa mid ka mid ah culummada muslimiinta ee magaalada london sawirrada waxaa lagu daabacay mid ka mid ah akawnada dadka ku nool magaalada london waxaana la sii raaciyey ilaah baa mahad iskale xafiiskeenna ku muslimiya laacibka caalamiga ee arsenaal laacibka akhlaaqda wanaagsan thomas barty ilaahay keligii ayay mahadi u sugnaatay ilaah waxaan uga baryaynaa inuu ku sugo diinta islaamka dhinaciisa baarti ma caddaynin hadalkan kagamana hadal barihiisa bulshada waxaa jiray hadal wakiilkiisa hore u marsiiyey mid ka mida taageerayaasha ganaris arsenaal isagoo beeneeyey laacibka inuu beddelay diintii hore u haystay islamarkaana uu qaatay diinta islaamka sidaasoo ay tahay ma diidin mustaqbalka inuu samayn karo taasi laakiin geesta kale sheekhii la taagnaa baarti waxa uu ku adkaystay wiilkan inuu qaatay diinteenna suuban ee islaamka bishii februari ee tagtay laakiin waa uu diiday inuu bixiyo caddayn muujinaysa inta oggolaasho uu ka helayo thomas waxaa jira warar kala duwan oo sheegaya inay jirto gabar muslimada u dhalatay waddanka morocco oo cilaaqad jacayl la jishay wiilkan waxaa la tilmaamayaa haatanba xidhiirkoodu inuu soconayo islamarkaana ay doonayaan inay isguursadaan balse waxaa la sheegay in guurku gabadhu ay ku xirtay inuu qaato diinteenna suuban ee islaamka inkastoo dhinacyo kala duwan ay hadlayaan islamarkaana waxa lagu hadlayo ay kala duwan yihiin haddana wiilkan waxaan eebbe uga baryaynaa inuu ku sugo diinteenna suuban ee islaamka magacaygu waa cabduqaadir kayska